Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga, halkan maanta waxaan hayaa daawo oo aad iyo aad muhiim u ah oo u qaalisan. Hadda ina farmashiye aadid mise dhakhtar aadid oo laga yaabin ilaahay idinkiisi. Marka daawadaasiti oo halkan hadda u jeediin 4 qaado oo wax xulbo iyo sanjabiisha oo inta xagga ugu jeediin iyo hal kuus oo tuun ah iyo xabad liimo 7 xabo oo timirtana oo tahay tan cajmiga iyo marka hal koob oo malab ayna waa soo raaci doontaa. had meesha ugu jeediin sanjabiisha waa tahay, malabkana waa kana hal bakeeri waaye iyo hal bakeeri oo khal ah, khalka oo tufaaxa ayaad u baahan tahay. Intaaseti markaad haysatiin in oo lusku daro oo mashiinka oo blenderka la geliyo, mashiinka wax shiido lusku wada shiido ayaka dhan. Markii oo juice oo kale noqoto waxaad ku shubanaysiin weel mise dhaladaaba kasii fiican, dhalo oo eber ah hadaad heshid inaad ku shubatid. Marka waxaad sameynay subaxdii markaad soo toostid hal qaado oo teaspoon qaadada weynta ayaad qaadanay. Markaad seexanaysin haweenkiina hal qaadad cunaysa asigan saas oo kale. Subaxdii hal qaadad cunay 20 minutes ka bacdi quraaco af bilaaw cun, then haweenkiina markaa cuntada wax kugu dambeysa oo sariirta aad u socotina asina hal qaadad cunaysa. Marka inta waa kay tuuntaaseti waaye hal kuus tuun, xabad liimo, 7 xabo timir, khalkana waa kana kan hadda inta ugu jeediin. Marka wadan kasto khal oo nooc ahay qabtaa, marka nooca oo wadanka laga isticmaalo soo gado asagana hal bakeeri waaye, malabkana hal bakeeri oo asli ah ayaa isku daraysiin. Wabillahi tawfiiq, ilaahay tawfiiq ani waafajiyo, daawan ilaahay anigu daro, wixii ilaahay daawo ku daro aad daawo ku darsama laakiin farmashiye mala aadaayo. Marka insha Allah yar ayaa aabiisi u sadaqay sadaqatul jaariya ayaas ugu dhigi.